بسم الله الصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا لا العاو حكاد لا دور موضوع سيدي سؤالي جوابه كله سيدي موقالك هورا كله انت مركا وحين كحسنين لاك ساعتان ادنا نو شير غريسا سبسكرايب نساعتان إلا سعد ولا ريال موضوع وهريان ربا إنا كهدلو حبي هداد كوريوتد أديكو ديك متغايو macnaha caadi ahaan marka ay tahay qofka hadduu dhiig ma tago waxay ka turjumaysaa xanuun iyo dhibaatooyin laakiin marka reeda la yimaado micnooyin badan ayuu tilmaamayaa micnooyin inta badan oo wanaagsan waayo haddaad ku riyootid adoo dhiig ma tagaa waxay noqon kartaa caafimaad haddaad tahay qof xanuunsanaa hataa haddaadan xanuun isku ogeyn aad xanuunsan tahay waxay kaloo tilmaamaysaa toobad iyo camal wanaagsan waxay kaloo tilmaamaysaa soo dhawaasho kheyr badan iyo cariiri culeysi rabbi kaa dulqaadayo waxaa wanaagsan qofka marka horey soo qoraayo inuu sheego xaaladii uu ku sugan yahay in la qabo inay gabar tahay iyo inuu yacni waxyaabahaas oo kale waxay kaloo tilmaamaysaa mataga dhiiga wuxuu kaloo tilmaamayaa lamiima oo qayba yacni inuu qofkaan intixaan loo yahay mise dadka isku diro dulmi way tilmaami kartaa sidoo kale dunuub way tilmaami kartaa hadduu qofka laakiin ka toobad keeno waayo toobadkeena way tilmaamaysaa aragtida dhiiga shar maahan laakiin haddana kulligeeda yacni kheyr ma wada tilmaamayso haddaa saaxiiba dunuub tahay dunuubtaada way ka turjumaysaa mawduuca labaad gabar kale waxay tiri waxaa ku riyooday riyo aad u dheer waayo yacni qoraal aad u dheer waxay tiri anigoo dad i ceersanayo kabacdi i qabanayo igu dhahayn ma nagu soo biiraysaa anigana waan ka cabsanay waxyaabahaas oo kale ma xasuusto masajka xalaan akhriyay laakiin waxaasoo kale badanaa adoo lagu ceersanayo adoo lagu qabanayo waa mashaakil iyo dhibaatooyin waxay kaloo tiri dadka ay ceersanayo waxay lahaayeen qur-aanka ma baranaysaa ma naga ballan qaadaysaa rubama adiga haddaadan ahayn qof rabbi ku xidhan misal ahlul qur'aan haddaad ahayn yacni kasoo qaad dad ayaa qur-aanka yaqaano haddana way dayacaan ma akhriyaan haddii nooca aad tahay laga yaabaa digniin rabbi kaaga timid haddii laakiin adigaad tahay saalaxad oo mar walba qur-aanka akhriyo qur-aanka qatimo oo yacni bisha ramadaan aadan la sugaynin oo qur-aanka aad qatintid maxay ahayd salaadaadi iyo dikrigaaga iyo toobadaada ay saxan tahay rubama ay tahay min ashayaatiin wallaahu yaclam qofka sida xaaladiisa markuu soo raacaya way ka fiican tahay marka kale mawduuca saddexaad waxaa weeye qofka hadduu ku riyoodo riyo isla riyadii dhexdeedana loo fasiro matalan riyadii dhexdeeda qof ayaa u fasiraya wuxuu leeyahay riyadaadan kheyr ayay kuu tilmaamaysaa markaasoo kale ficlan riyada waa kuu kheyrkaa niyeyso niyadda gasho yacni kheyrka haddii laakiin riyada qof kuuga fasiro riyadaa ma fiicno riyadii dhexdeeda yacni ay qof kuu fasiraayo riyadaa ma fiicno shar iyo dhibaatooyina kuu sheegaa laga yaaba inay idana tahay min ashayaatiin dhinacaaga bidix 3 jeer u tuf rabbina sharteeda ka magan gal oo dhinaca u jiiftimay dhinac kale u seexo wax dhibaatay saameyn kuuguma yeelanayso mawduucan oo kale hadda wuu ka baxsan yahay fasiriyo laakiin waa waxyaabo ku saabsan qofka riyoonay mawduuc kale ayaa jira qofka hadduu riyoodo oo riyadiinu xasuusnayn markuu soo kaco sidoo kale taana idin riyo lama dhihi karo waa qof iska daalan caadi ahaan nafsiyan iyo jismiyan daalan mise qof fikir badan mashquul badan mise sidoo kale adkaar la-aan way sababtaa haddayna adkaari wax walbana aad la timaadid oo arrintaan waxaa laga yaabaa daalka iyo dhibaatadii ciriiriyada iyo fikirada badan aad dareemaysid inay iyadan u sabab tahay riyooyinka axaadiisa nafsi la yiraahdo iyo qarowgii waxyaabaha ayay noqon karaa riyooyinka noocan oo kale walaalayaal halkaasaan kusoo koobaya laag noo saara noo sheergareeya la wadaaga asxaabtiina aad iyo aad u mahadsantihiin dad badan aa igu soo biiray insha allah waxaa mawduuc iyo su-aalo aad qabtaana qaybta komitiga igu reeba iyo fasirka riyooyinkiina iyo xaaladiina soo raacinaysaan wassalaamu calaykum